dadaalo nabadahu disodara inta ay qorteen ku diirsaday baatihi ku diirsaday baatihi ku diirsaday baatihi Soomaaliland ku diirsaday baatihi dadaalo wala alanahay dadaalo nabadahu disodara inta ay qorteen ku diirsaday baatihi Soomaaliland ku diirsaday baatihi ku diirsaday baatihi ku diirsaday baatihi markan doorashada arkay sidaad dacadowti aadu kala dambaysan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان دتكينا دمر رج دنيرو كل عرمتي وقتن فريا حلا كل ما سنتين صاد وسوق بقشين سودوينتا ولكن عبد أحمد آير وأحمد لطلية أحمد حوينا حاجة أريمها دبدة ما دام إن هيدا مسلمة وحا لا يرميل هدين الله لو سوق قادين إلهي ولا قد عسين إلهي كتوجين سادرتي وحن شعلها مركو قهر الصبا إنه كسر دويو محمد السيد سو آية القرآن نقفره يوحوغا وعدها كسر دو محمد السيد بسم الله الرحمن الرحيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين صدق الله العظيم وصدق الرسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين أما بعد يا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله runtii maadaama aynu nahay dad muslimiina oo laa ilaaha ila allah maxamed rasuulullah shahaadanaya oo maaragtay isugu yimi meel laabudda inaynu isxasuusino ilaahay subxaanahu wa tacaala marka ugu horeysa waxa la isxasuusiyo ugu horeeya waa attaqwa allah ilaahay subxaanahu wa tacaala cabsidiisa ilaahay subxaanahu wa tacaala waa kilaha walaqad wasayna aladiina uutuu lkitaaba wa iyaakum an ittaqu llah idinka iyo kuwii idinka horreeyba waxaan u dardaaranay alla ka cabsi an ittaqu llah marka ilaahay subxaanahu wa tacaala aynu ka cabsanno waxa kaloo aynu nahay dad muslimiin oo laa ilaha illa allah maxamed rasuulullah leh kelmadaasina waa ogsoon miftaaxul janna way furihii jannada marka maadaama aynu ashahaadanayno calankeenana ay ku taalo ama calanka ay ku taalo laa ilaha illa allah maxamed rasuulullah ama laa ilaha ku taalo waxa daruuriya inaynu kelmadda xaqeeda siino oo waayo waa furihii jannada lagu galay furaha jannada lagu galayaan wuxuu leeyahay ilkuley laa ilaha illa allah maxamed rasuulullah qofka yidhahda jannadu galaya laakiin furo kastaaba wuxuu leeyahay ilko oo furo bilaa ilkaay wax ma furo marka ilkiina waxaa ka mid ah salaadii cibaadaadkii waxaa ka mid ah soonkii sakadii sadaqadii xijaabkii alla ka cabsidii waxaasoo dhan baa ka mid ah marka walaalayaal aynu ilaahay subxana wa tacaala ka cabsano kelmaddaana aynu runtii xaqeeda marino oo weliba maalinta la dabaaldegaya xafladaha iyo waxaasi jiraana aynu aada isu ilaalino oo waxyaalo fusuqa yaynaan kelmadda hoosteeda ka samaynin wabillahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu فلان نقول كوي وحقوقاتها إن هذا واحد شعلنا كسر له يسوع كلمة كوكوبين إنه هذا كير هذا قداميها حسبي كل مية محمد عبد القعسة محمد سلو أنا قلت هذا يوم مع جدي ذا قبل قابضة وحن مركو جوه الرئيسة إذا كل سلامة السلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحن إذا كم هذا نقيا sida wanaagsan ay uga soo qayb gasheen shirkan maanta ballaaran ee aynu martida inoogu yahay la taliyaha madaxweynaha arrimaha dibadda Cabdi Axmed Ayir aad iyo aad ay ugu mahadsantihiin
sida runtii ah haddaynu nahay shacbiga reer Somaliland ee ku dhaqan Oslo ama Norway waxaynu nahay dad shacbi hoos ku duuban si midnimo ah oo wanaagsan uga soo wada qayb gala marka uu fuudiino timaado dalkeena inooga timaado madaxdana si wanaagsan oo sharaf leh u soo wada dhaweeya marka taadi ayaynu uga amaananahay Cabdoona waanu sheegnaa waxaan kaloo leenahay Cabdo mar labaad ku soo dhawow Norway Oslo wixii wara ee warbixina ee dalkii ku saabsan haddii ilaahay ka dhigo waxay nala jooga Cabdo Axmed Ayir isaga ayaa wadankii wixii wara ee ku saabsan wadankii inooga warrami doona inaguna si wacan baynu dhageysan doonaa wixii haddii alla ka dhigo waxay inaga marka inala gudban wixii inta ka harsan wixii soo jeedinaya ama aragtiyahooda wax uga sheegaya ama fariin faraya waqtiga uu la joogo ilaa isniinta ah muddada yar inay ka faa'iideystaan wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh mudaniye marwo ka soo qayb galay shirkan caawa waxaan halkan idinka wadaa salaan qaaliya ka socota maxay tahay Cabdo Ayir waxaan kaloo idinka salaamaya dhammaan gudida soo qaban qaabada shirkan caawa waxaan u yeerayaa gudoomiyaha jaaliyadda Somaliland ee Oslo Ali inuu shirka inoo furo la taliyaha madaxweynaha arrimaha dibadda Cabdo Axmed Ayir safiirka Somaliland Mr. Sulub gudoomiyaha xisbiga kulmiye xildhibaan baashe iyo cabdikariin madaxda xisbiga ee kale meesha fadhida jaaliyadda reer Somaliland waxaan ku salaamay salaamta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh salaam kadib Cabdo Ayir waxaan leenahay ku soo dhawow dalka Norway gaar ahaan magaalada Oslo haddaan jaaliyadda Somaliland nahay dalka Norway gacan furan baan ku soo dhaweynaynaa sida waqtiga Cabdo Ayir wuxuu ahaa barisaabkii gobolka Awdal ka horna wuxuu soo ka ahaa barisaab gobolka Togdheer anagu runtii Togdheer baanu ku kulannay xilligu ka ahaa barisaab markuu berigile shaandhaynta ee uu wareegay boorame anagoo shaqeyn aniguna waxaan ahaa kubadda tababaraha gobolka Togdheer marka aad iyo aad baa loo amaanayo kulay idinku waa la socotaan labada gobolba wax fara badan buu ka qabtay marka waxaan leenahay Cabdo Ayir soo dhawow mar labaad iyo mar saddexaadba jaalidahan waxaan doonayaa inaan idin sheego kale mas'uuliyiin badan baa halkan inagu timi mucaarad iyo muxaafidba waxa runtii fiican markaan jaaliyad nahay inaynu meel wada jisano wax dhinac wada wadno inta badan waxa dhacday nin walba xisbigiisa ayaa inta badan hogaamiya shiraka maanta wixii ka dambeeya marka jaaliyadda la kulmayso gacanta waxa ku qaban doonta jaaliyadda waayo waxaan aragnaa waxyaalo badan oo iskhilaafay dadkii oo kale jiitay arrimihii aan sidii sax ah u socon taasina waxay keenaysaa inagu inaynu kala daawano haddaynu nahay jaaliyadda reer Somaliland waayo xisbiyadu hadday la kulmayaan gooni shir ay u qabsanayaan taas waa shir gooni noqon doonta oo iyagu gaar u ah laakiin jaaliyad markuu la kulmayo nin mas'uul ka socda dalka Somaliland waa inaynu jaaliyahan aynu u wadanaa barnaamijkeena xildhibaan baashe ku soo dhawow xildhibaan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh runtii farxad gaar ah bay tahay maanta inaan ka soo qayb galo xafladan soo dhaweynta ee lagu maamusayo Cabdo Axmed Ayir
runtii shakhsi magac iyo karaamo ku leh shacabka reer Somaliland oo taariikhanadaad milicsato ka mid ahaa halgankii sanamta isla markaana ahaa dadkii dilka way ku xukuntay dawladii kaliya taliyay barre 1982 oo ilaahay ka saaray halganka noocaas oo runtii Somaliland soo martay oo ahaa mid adag oo qaraad ayaa imika kulli waxa bedelay halgan kii ka duwan oo lagu halgamayo maskaxda taasoo micnihiisu yahay in lagu tartamo horumar isbedel doon iyo dimuqraadiyad halganka noocaas wuxuu noqonayaa mid kii hore ka duwan mid u baahan karti mid u baahan aqoon mid u baahan dheergaradnimo iyo mid u baahan isfahan iyo wada shaqayn iyo in la fahmo waxa la doonayaa inuu yahay wax isku mid ah runtii anigu Cabdo ku amaanayta uu ahaa gudoomiyaha gobolka Togdheer soo noqday isla markaana noqday gudoomiyaha gobolka Awdal labada xilna uu soo qabtay ay runtii xilal iyaguna qiimo leh ay marna wuxuu noqonayaa inuu ka tirsan yahay jaaliyadda Scandinavianka ee wadanka Denmark magaalada Copenhagen taasna markaa Cabdo inooga dhawaanayo dadkii kale ee ay tahay qurba joogta Somaliland uu ka mid yahay runtii waxa soo dhamay waxay noqonayaan wax isku soo kordhaweynaya marka waxaan leeyahay Cabdo soo dhaw ku soo dhaw Oslo dalka Norway runtii markaan wax yar oo kooban si anigu waxaan xildhibaan ka tirsan golaha deegaanka dalkan Norway runtii waa dalkayagii waa dalkii aynu inta soo deganayn waa dal ka qayb qaatay halganka SNMta waa halgan markii runtii wax la xusi karo saaxiib ayaynu nahay marka dawladda Norway marka runtii waxaan ku leeyahay soo dhawow oo runtii dawaan iswaraysan doona waqti baynu runtii wada qaadan doona waqtigaas insha Allah hadii Ilaahay inoo saamixi doona inaynu wada sheekaysano inaynu isbarano inaynu araada isdhaafsano ayay noqon doontaa taasi mar labaad runtii waxaan si gaar ah ugu mahadnaqayaa qabanqaabiyaasha ee soo qabanqaabiyay xafladan caawa oo ah hogaanka xisbiga kulmiye iyo jaaliyada wada socda waan ku raacsan runtii sidoo cali sheegay runtii si gaar ah waxaan yana ugu mahadnaqayaa runtii asxaabta qaaliga halkan soo qashay halkan joogta ee reer Kristiyaansan Maryan baan si gaar ah ugu mahadnaqayaa ay mar wada nimid dalka runtii isku dhaweyn oo ka timi magaalada ilaa magaalada Kristiyaansan aad iyo aad baad maastay Maryan iyo dhamaantiinba haweenka walaaladii dhamaantiin waa mahadsantihiin soo dhawaada runtii de waxaan idin leeyahay mar labaad waxa hadii Ilaahay maanta anigu waxaan ka imid xisbiga shaqaalaha oo xisbiga Abeed Baartigu wuxuu ku jira halgan oo waxaan ku jirnaa laan ismaatii waxaan jecelahay inaan la wareegno maamulka magaalada iyo ka qaranka 2017 marka runtii waxa marti leedin ka yahay daatiin reer Somaliland laguna yaqaanay inay dhamaantiin xisbiga shaqaalaha u heelisaan codkiina siisaan bisha September 14 hadii Ilaahay waa mahadsantiin shirkan waa shirka kulanka jaaliyada iyo la taliyaha madaxweynaha Somaliland cid kastoo timaado furan yahay iyo cid kastoo ka soo qayb gasha waxaan leeyahay soo dhawaada welcome gacmo furan waxaan halkan ku soo dhaweynayaa xildhibaan Faadimo علي مدر إنه يحب إن شاء الله بإذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مركب واحد سلام يا سلامك. سلام كدبرنتي عادي عاد بنوقف فرح سنة هاي مرتين علوسين وقت مودن كيني. أنا وقت أنا هاي قرب بتشوق مركزته دتك مجا سومالان حنبار سنة معلنكا. أنا مرنا لعبنا مرنا لسوق لبحنا نوسوق لفرفر عاد بنوقف فرحنا ده نوفرته عاد بنوقف دوك سنة وحن كلها هاي مدنة عبدو عاير كسودو نوروي عادي عدنا مكو سلامية عادي عدنا فرحسن هنا تلكن نوجو صباقتي وحن كلو سلامية شاليد إذا قرحت بدن له تكل ولا نقول قنا نقول ماركتين إنه هاي شاليد اسكو حدن مركز شاليد عاد بنو سلامية مدحنا كله هلكن فريدة قدومي هاي شاليد سفيرك سلوب دمان من السلامية يو قدومياشا أصحابتي هلكن فريدة انتبه مريم قورنا وسلامية يدون هلكن فريدة سلام كدب runtii de hadalka ku dheeraan maayo adigaan ka sugeynaa warbixin waxa noogu jira inaga gaar ahaan Somalilander laba xildhibaan golaha deegaanka markaas labada xildhibaan waa baasho iga horreeyay halkan ka hadlay aniga imikana doorashadii soo baash sheegay ayaa nagu soo afle markaas doorashadii golaha deegaanka waxa la qabanayaa bisha September 13 iyo 14 markaas waxaan leeyahay jaaliyada tasaw la socdo oo
inay doorashadii soo dhowdahay laba qof oo Somalilandna ay liis ku yaalaan oo aniga baasha aan nahay aan idinku wargelinayna marka waxaan jeclaan lahaa inaad xisbiga shaqaalaha subaashba sheegay aad u hiilisaan oo maaragtay aad u codaysaan gaar ahaan annagana xasuustaan marka codaynaysan waayo codkiina aan ku soo bixi kareena laakiin waad ku guubaabinayna inaad maaragtay aad noo codaysaan runtii aad baan ugu faraxsan wax lagu faani karo weeye inagoo Somalilanderka waliba waa leenaga badan yahay aan laba xildhibaan kuna jirno golihii deegaanka oo Somalilander ah nahayna musharaxiin oo liiskii xisbiga shaqaalahana lagu soo daray wax lagu faan karo weeye wax sumcadda Soomaaliyeed oo dhan kor u qaaday weeye wax gaar ahaan sumcadda reer Somaliland kor u qaaday weeye waxaan jeclaan lahaa runtii anagu deemka in taramna soo dhamaysanay midna waan qaadanaynaa imka in dhalinyaradana saasoo kale ayaguna ay ugu soo dhiiradaan waxa fiican hadii wadan la degan yahay waxa la yidhi meel ama waa la joogaa ama waa laga maqnaadaa inaynu siyaasadooda iyo miiska talada fadhiisano way fiican tahay oo intii inaga maaragtay dad kale ay go'aamada inoo gaar lahaayeen inaga miiska fadhino aynu go'aamada ka qayb qaadano maalin kasta kiisas baanu baasgareynaa maalin kasta kiisaskaanu baasgareynaa la soo hordhigo anaga idin fadhina oo inagana wayna khuseeyaan way waxa wadanka weyn deganahay go'aamada la gaarayo iyo sharciyada soo baxaya qaybaynu ka nahay wayna khuseynayaan marka waxa way qaybta inaga inagu saabsan siiba doon ka doodayna oo waxa waajib bay nagu tahay wanaanu ilaalinaynaa taana waad nagu ogtiin marka noqoto mas'uulka inooga yimi Somaliland waxaan jeclaan lahaa inaan su'aal weydiiyo markaad kuleyba hadlaysid aad bal noo taabato qaxoontiga Yemenka yimi bal qorshaha Somaliland ay ka leedahay iyo waxa ugu tala gasheen iyo sida looga faa'iideysan karaba Kenya laftirkeeda waxa weeyaan imka waxay lahaayeen qaxoontigii wixii dhacay dhibaatadii dhacday darteed inay wadanka laga raro inkastoo AU-da aan isku raacsanayn marka waxaan jeclaan lahaa bal Somaliland ma ugu jirtaa wax faa'iidii haddii in maaragtay ka faa'iideysano soo dhaweyno qaxoontigaas iyo xiriirka dhexmari kara Somaliland iyo qaramada midoobay qaxoontiga waan jeclaan lahaa noo taabato aad baan kuu soo dhaweynayaa hadal ku dheeraan maayo jaalidan aad baan u salaamayaa wassalaamu calaykum kulligeen arbas baardon nahay insha Allah waxaad soo gaatan soo inay doorasho xalaal ay ka dhacdo Somaliland taasina waa iska ogtahay aan indin horunahay waxa ku soo dhawaanaya xildhibaan Cabdikariim Bilaa Waabari ku soo dhawaada السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان waxaan salaamayaa martida sharafta leh ka soo qayb galayaasha haweeniyo ragba hadalka badidiisa waa la yiri wax badan oran maayo waa ku soo dhawow Cabducaaye khaas ahaan anagu ama aniga ahaan meel kale iska xigsanayna wada gobolka uu ugu dambeeyay barasaabka ka ahaa inaan aniguna ka imtay marka dadka waan iska xignaa isaga marka ku soo dhawow waan ku leeyahay mikrofoonka isagana ku soo dhaweeyo Cabdirasaaq Cadare كل واحد فينا إن عن صدوين وصوّد كأنه دمانتيو سيدا ماركتي رجي جوري أما قدوميه هو كوشة شاليدو كل أما يرانا أما بدنا لكن إلا وقت جي أنا قاعد أعوض كم ده هذا كجوري ما دام أنا جروب بيجسوري وحويان وحيادونا عدة تبادل كل سيدي سيد دوبان لو سودا دوي تعمل يرو ماركتي كفتن كوينو ده ماركتي تاي إن لقى هذا هذا كور لو قاعد لكن أنا جوري ده أعوض هذا waxaanay tahay in halkaas soo taagana ay tahay inaan ku tusno ka soo wali garabka dumarku lagu dhibayo oo in kala ay sii badnaan doonto inaan ku tusno inaan leenahay macnihii dad kala duwan xisbiyaal oo kala leenahay guddi aan leenahay aqoon-yahan oo leenahay arday aan leenahay wax walba aan leenahay inaan tusno ayaan u soo kacnay kuna tusno inaan macnihii isku duubanahay soo dhaweynna aad maaragtay iyo aad ku soo dhawaato adigu wadankan iyo waqtiga hadalkuna uu yahay mid adiga madashan ay ku banaantahay inaad wixii aad sheegaysaad oranaysaad noo sheegto kulli wax su'aalo imkaan kuma weydiinayo laakiin waxaan kula ku soo dhawow halkan Cabducaaye ku soo dhawow kulay hadda aad ku soo dhaweey xaga odayaasha oday ofsiye baan filayaa hadda inaan jecelahay ku soo dhaweey mikrofoonka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh marwo yiri mudanaba soo dhawaada waxaan joognaa wadan ya Yuruba waxay hadeen jeer horeysiyaan waxay yiraahdeen ladies and gentlemen marka waxay idinkaayaan inagu saati inagu horeysinayaa waxaan kale Cabdi Axmed Aayir kusoo dhawo Oslo
anuu kugu yeedhiya weli magacii markii dambe reer boorima ku bixiyeen cabdi qunyar soo dhawow cabdi axmed baan sheegaynaa caanaayir jaaliyadaha ugu da-da weynba ka mid ahay jaaliyada oslo ilaa 40 sano ayay cagcagaynaysaa waxayna ahayd jaaliyada yurub marka la eego ugu yar laakiin waxaan kuu sheegayaa jaaliyada ugu waxtar badan ya isku duubnid badan ayay ahaan jirtay imran ay tahay laakiin sama intay nagu soo beer 10 sano nagu soo beertay oo xagga siyaasadda axsaabta ma filaya xogaa inay yara kala kacaysaa محمد إبراهيم كل مشاهدين تيمان تقولون أتوقع قصبنت مركز السلام عليكم مدحونها سومالي لان مستر عبد العال مدنيه مروين بيدك السلام عليكم السلام عليكم سولنا شاليد سومالي لان marka labaad hadaan taa ka gudbo waxaan salaamayaa waxaan leeyahay saaxiibkay dadka soo dhawaayay quruxda badan halkan suuqan keenay sharaf bay tahay soo dhaweeyay Oslo inkastoo aan anagu shalay waxaan jecelahay hadda inaan ku soo dhaweeyo mikrofoonka Cabdullaahi Salmaan Bidde aan si aragno Cabdullaahi Oslo waxaan leeyahay aad ku soo dhawow runtii waxayna joognin aad u qaaliya marka laga hadlayo halgankii la soo maray nin dhibaato badan soo maray loo soo xidhay u soo dhibtaaday ilaa xad aan laga sheekayn karin dhibaatooyinka soo maray waxaan filayaa wixii dee wararka uu isagaaba ka hadlay oo duubay oo waraysi ka bixiyey oo ay ka sheekeeyey hawlihii iyo dhibaatadii soo martay isaga iyo niman la mid ahaaba jeelal aad u dhibaato badan ayay soo mareen waxay u soo mareen waxay ahayd ummadan in isbedel ka dhaco iyo in wanaag loo horseedo waana mid taariikhda oo gashay Cabdo waxaan kale ku hambaleynayaa intii uu xilka hayay labadii gool soo marayba shaqo wanaagsan uu ka soo qabtay runtii waxa taariikh gaar ah oo ahaan soo arkoon aad uga hambaleynayaa iskuulka dhagaale oo burca ka furay ilaa imika Cabdo ku qoran yihiin runtii waa qayb inaga mid ah oo aynaan inta badan ka fakirin Allah uu naxariistay min inagana inaga mid ahaa inuu joogi jiro loo oran jiray Professor Cabdiraxmaan aanjee halkan inoo joogi jiray ayaa bari aan warqad wada qoray qolada dhagaale halkan joogta wala fikradda isaga ay leeyimi oo yiri waxaan doonayaa bal inaan dadkii dhagaale caawiyo runtii ma suurtagal loo xidhan noguma jirto qorshaha bariga waxaan ahayd barigan cusbayn ba aan tamarta badan balahayn runtii waa qaybaha aynu ilowna nolosha ee aan dadkeena aad looga taageerin ama dadka indhaalaha noqdeen ama dadka dhagaalaha noqdeen ama dadka curyaamiinta ah noqdeen haddana gudaha dalka intii tamartooda ahayd way ka dadaaleen inkastoo dadka dhismaha dhisaya aanay ku darin qaybihii looga baahnaa oo ay tahay mid in la isxasuusiyo oo dadka wax dhisaan oo inta badan waa dadka dibadda ka taga oo laga yaabo qofkii curyaanka ahaa inaanay u suurtagelin waan arkay qoladeen reer Oslo dukaamo badan oo Hargeysa ka furan oo ku leenahay laakiin se in loogu tala gala ayaa marka waxa hadalka ay ku kalifo xasuusiyay waa hawsha uu soo qabtay ee Cabdo qaybta ka soo qaatay ee uu soo abaabulay ee ahayd dugsiga dadka dhagahala waana rajaynayaa dhalinyartiina dambe wixii aad ku tari kartaanba inaad ku tartaan gobolada kale la gaarsiiyo oo laga furo runtii waxba ku tiigaal maayo oo de hadal badan oo dhahda meesha kama fura kelmadda kaliya taala waxa weeye runtii dadka dabaduhu aad bay ugu amaanan yihiin qoladeen Norway muddo ay xagga joogo aad baan ugu amaanayaa horumarkay ka sameeyeen dalka gudihiisa laakiin waxa la inooga baahan yahay daara aynu dhisno uun maaha inaynu dadkiina dhisnaa dalkii wuxuu u baahan yahay in dad loo dhisaa dadkii in shaqo loo abuuraa loo baahan yahay shaqo loo sameeyaa runtii waxaa lagu oranayaa horumarka dad shacbiga qabtay shacbigu dad guryo badan way dhiseen runtii laakiin se waxa loo baahan yahay in dadkii shaqo loo sameeyo takaliya anagu xuskan ku xusaya waxa weeye sidee loogu sameyn karaa in la joojiyo daarihii aynu dhisayno bal hadda dhinaca shirkadaha in warshado tamaandha la sameeyo mid caanaha sifaysa la sameeyo mid samaysa recyclation oo bacaha iyo waraaqaha iyo dhalooyinka yaala magaalada dub xitaa u bedesha in la sameeyo oo la isugu geeyo bal in wax la qabto ayay inaad madaxweynuhu ku kalifin inuu joojiyo bace inagu lafteena wax ka qabana haboonayd runtii marka laga hadlo guud ahaan hadii jeer hadii siyaasadda iyo dawladda lagu jiro dadku laba dhinac u baahiin mucaaradkuna waxay jecel yihiin la wax kasta waa baaba wax ma jiraan maxaafidkuna waxay jecel yihiin la yiraahdo
wax kasta wanaagsan laakiin si runta marka lagu hadlo wax badan baa dawladdu qabatay wax badan oo dee dhaliiliina way jiraan oo wali dhimanay bahashu waa isku dhiibkaasoo inta iyagu maanta qabtaan kuwa ka dambeeyana kasii badanna qabtaan baa laga rabaa marka runtii marka soo hadalkayga soo gabeeyo waxaa looga baahan qoladeena dabaduhu waxaad moodaa dabka ugu badan inagu ka shidna xagga markaan gudihii tagay gudaha balaa jirta ma arag laakiin si dabadaha marka la yimaado wax badan oo filayn baa ku dhacaysa barigaan jabhada ahayn baan ka soo baxay gudaha markaad frontka ka tagto ayaad u tagi jirtay marba dhibaato marka dalkii ka soo baxayna tii ugu yaabka badneed baan arkay waxaanad filanayno oo aanad maqli karin oo qaadan karin bay dadku weydiinayaan oo qaarkood rumaysan yihiinba oo haddaad tidhaahdo maya nimanka carabta joogi jira waxaa lasoo nagi maraynay maxaa ahayd shalayso ka dhaadhacnay meel heble maxaa ahayd meel heble nagu celiyey hargeysa garoonkeedii kama soo dhoofin baa qaarbarigii ku dagaalamaya nimanka carabta joogi absolutely dadka dibadda jooga waxyaabaha qaarkood baanad naxaysaa marka ku weydiiyaan war dalkii waa la joogay waana lagu wanaagsan yahay horumar badanna waa laga sameeyey waxaanaynu jeclaanaa waa in horumarka nootaa haddii la tartamayana sidee tirtan lama diidana qofku inuu xusbi galo lama diidana inuu isbedel keeno laakiinse waxaa loo baahanya inuu nidaam iyo basir wanaagsan ku keeno marka qoladeena dibadaha waxaan ku guubaabayaa inaynu dhinno dabka aynu ka shidayno dalka gudihiisii waayo innaga carruurteena halkan joogtaa rag carruurtoodii shaqaalaaday oo iyagii shaqaala oo ubadkoodii joogo oo ayaa loo baahanyay from bari to galbeed baan ka hadlayaa markaa cidda rabshada keentaa waa cid dabadda ka timi marka waxaan leeyahay taa laga daayay inaynu wax ku tarra mooye inaynu waxyeelaan ka dayno waxaan mar labaad kugu soo dhaweynayaa cabdi adoo warkayga xogaalsan dowladdana aad ku jiro oo ka shaqaynayay waslaa kugu soo dhaweynayaa runtii nin aad nagu qiimo badanna waa tahay welcome cabdi waan ku soo dhaweynaynaa hadaan nahay jaaliyadii norway waxaan kugu soo dhaweynayaa gamco furan waxaan kugu soo dhaweynaynaa soo dhaweyn wanaagsan aan u leenahay caado ayaan kugu soo dhaweynaynaa mas-uuliyiinta reer somaliland haddaanu nahay jaaliyadii norway annagoo isku duuban aanu caado u leenahay inaanu annagoo isku duuban ku soo dhaweyna gamco furan ama muxaafid ha noqde ama mucaalad ha noqde waa mid nooca caado oo run ah jaaliyadaha ugu firfircoon ee lagu faani karo runtii anigu odaygiinaan ahay iminka sanadkii markii ugu dambeeyey ishaan ugu jiray inaad wax noqotaan waxaan ogahay dad ka wanaagsan dadka loo jooga inaan rag iyo dumarba inaanu jirin aydhiin maydii hore laga bilaabo ilaa maanta 300 oo kun lacag ka badan ayaa bixiseen jaaliyada bixin lahayd waatee oo ugu dambeysay 60 kun ee aan ku bixinay ilimaynan rugmaynan lahayn haddaynu dhidibada u taagnay aynu ku bixinay entoy depositkii meesha aynu karaynay dhalinyarada hogaaminayo cali gudoomiye cali oo isna hawl badan iyo inay istaagto iyaguna ku dadaalay oo ku guulaystay oo aynu filayno aydhiin may oo fooda inagu soo haysta qalqaabadeedii oo noogu yeeray daraad inaan cidna waxba la weydiinino si fiican dabaaldeg fiican ay iyagu ay maaragtay ay noo samayn doonaan iyadoo cidina wax bahay aanay jirin wax lagu faano aad baan ugu mahadnaqayn haddaan guurtirahay dhalinyarada guddida jaaliyada somaliland iyo hawsha ay qabteen waxaan ku boorrinay inay kasii wanaajiyaan halkaa ay kasii ambaqaadaan halkaa waxaa ka muuqata in ay dareensan yihiin inaad ahayd barasa wanaagsan sidii horeba aanu xanta ku maqalnay markhaatigeeda kuu furan maanta محمد أحمد نور أدب بهسيه جعل هذا إلى كوية ميكروفون كا خضر وهالكاس نوصي وضع خضر سودو waad mahadsantahay mustafa waxaan ku soo dhaweynayaa gudoomiyaha garabka ururka haweenka maryan ku soo dhawow maryan goore anigoo ku hadlaya gudoomiyaha garabka haweenka iyo maxay ahayd dhammaan haweenweynaha ka soo qayb galay maanta ku hadlay haweenaha ka soo qayb galay shirkan aynu ku soo dhaweynayno cabdo axmed ayar
aynu ku soo dhaweynayno waxaan idinku wada salaamayaa dhammaantiin waxaan leeyahay rag iyo dumarba soo dhawaada intii dambeba ee xilalka Somaliland ka qabtay iyo intii hore ee uu maaragtay Somaliland u soo halgamay iyo intuu jeel u soo galay ba taariikhdiisii runtii aad ba loo faahfaahiyay oo looga hadlay iyo waxa qabadka de runtiina looga baahan yahay ee looga fadhiyo Somaliland inaanu u qabanaba way runtii dalka qurba joog iyo guda joogba waxa waa looga baahan yahay wax qabad markaynu qurbaha joogno ma aha kaliya de biilasha aynu dirno waxa la inooga fadhiyaa inaynu wax kasta oo horumar ah aynu ka qayb qaadano oo aynu dawladeena la garab qabanno inagoo isku duuban guud ahaan mucaarad iyo maxaafidba marka taas waynaynu ilaashanaa horta nabadgelyadeena waynaynu ilaashanaa isku duubnideena waynaynu ilaashanaa maxay haytay wax qabadkeena marka dhammaanteen maxaafid iyo mucaaradba mas'uuliyad culus ayaa wadankeena ka saaran wadanka waxaynu soo marnay taariikh dheer oo haddaynu imika inagan meel kaleba ka eegin de Cabdo oo in maanta halku soo dhaweynayno kaliya taariikhdiisa eegno oo inu dub eegno oo inu dub jaleecno waxaynu arkaynaa inta loo soo maray inagan qof kaleba eegin ayaynu arkaynaa inta dhibaato uu soo maray hadda taariikhdiisa aad akhridid qof kasta xisbi kasta tahay meel kasta ka soo jeedo inaad ka fikirto hadalka aad oranayso dhibaatada iyo affectiga uu ku yeelanayo dadka ama qurbaha joogo ama gudaha joogo marka isku duubnadu aad bay muhiim u tahay anigoo hadalka dheeray inta ku soo gabagabeynaya waxaan leeyahay Cabdo Axmed Ayir ku soo dhawow Norway Rooda Maxamed ku soo dhawow Bismillahir Rahmanir Rahiim marka hore mudana iyo marwo waa salaamantiin dhamaantiinba marka xigta waxaan soo dhaweynayaa oo sidii caadada inoo ahayd qalbi furan niyad wanaagsan kaliya laab ku soo dhaweynayaa Cabdo Axmed Ayir oo maanta inoo yimid halkan fadhiya marka waxaan leeyahay anagu haddaynu reer Norway nahay sidii caadada inoo ahayd ee laynagu yaqaanay ee mucaarad iyo maxaafidba qofkii inoo yimaada aynu ku soo dhaweyn jiray ayaan maanta ku soo dhaweynaa qalbi furan iyo niyad wanaagsan aniga wadaniyad baan ahay wadankayga aad baan u jecelahay 39 sanadood baan Norway jooga bisha soo socotay August 7deeda ayaa 39 sano ayaa anoo yar baan nimid haddana waxaan u maleynaa inta halkan fadhido qof Soomaali ilaa saan u jecel mooyo qof iga jecel marka mar labaad iyo mar saddexaad ba soo dhawo qalbi furan iyo niyad wanaagsan ku soo dhawo assalaamu calaykum waraxmatullaah waxaan ku soo dhaweynayaa imika Safiir Sulub oo Allah welcome Safiir ku soo dhawo marwaniyo mudanayaal assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaa sharafiya maanta inaanu halkan ku soo dhaweyno la taliyaha madaxweynaha arrimaha dibadda Mr. Cabdo Axmed Ayir Cabdo shalay buu kagada diyuuradaha ee Kadamun ka soo degay isagoo boqosho gaaban noogu yimid halka Norway muddo gaabanna wayna la joogi doonaa insha Allah kullaba arrimaha uu yimid waxay u badan tahay maadaama uu yahay la taliyaha arrimaha dibadda ee madaxweynaha waa arrimaha la khuseeyo khaasatan haddii aan waxaan odhan karaa wakiilada ama safaaradaha idinkuna kama marnidin waa hawshiisa weeyaan taas taariikhdiisa iyo mujaahidka iyo waxyaabaha uu soo maray oo dhan waa halkan baa laga sheegay taa waxba ku noqon maayo waxaan jeclaan lahaa inaan in yara iftiimiyo kullaba bishan waa April oo bilun bay naga xigtaa 18 May
kolleyba sidaan warka ku hayo waxay nagu soo foolle wufuud wadankii ka socdaa wiigagan soo socdaa waxqabadka dowladda somalilan ee uu hogaamiyaha ka yahay axmed maxamed maxamuud aad bay u fara badan tahay runtii dee wax halkan aan kusoo koobi karana ma aha waxaan markaa inagu mahadlaqayaa sida wanaagsan aad ka soo qayb gasheen qolooyinka soo qabanqaabiyana way aad bay u mahadsan yihiin hadalkayga waxaan kusoo ururinaya anigoo halkan kusoo dhaweynayaa mr cabdi axmed ayer mr cabdo axmed ayer cabdo waxaan u malaynayaa magacaa cabdo inaguma badnaa inaku cabdi un baan inta badan idhaahna markaa carabkaa kolba iga xadaya cabdo soo dhawo baan ku leeyahay mikrofoonkana kusoo dhawo بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين مدنيال iyo marwooyin jaaliyada reer Norway mas'uulka u sareeyana uu safiirka wakiilka ka ah jamhuuriyadda Somaliland mudane surub madaxda jaaliyada madaxda xisbiyada cidii ka fadhida garabka haweenka jaaliyada guud ahaan marka hore waxaan dilayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxay ahayd reer Norway anigu waxaan imi 1980 baan Denmarkini ilaa muddada dad yar baa markaa Denmark ku dhaqnaa laakiin Norway dad doora runtii ayaa joogay xilligaa waxaan qiriyaa oo idinka markhaati kacaya in xilligii adkaa qaraadhaa ee aynu soo maray nafa badani ku baxeen in badani ku naafowday min waliba meesha uu joogo ayuu hawsha kaga qayb qaadanayay waxaan ka markhaati kacayaa inay Norway ahayd meelaha lafdhabarta u ah dhinaca qurbaha ee halgankii dalka haddii ay saana tahay haddii ay dhaqaalo tahay haddii ay qalabkii u horreeyey oo sidaa aan warka ku haya bustayaalba ugu horreeyey ay mujaahidiintii huwadaan oo dhaxanta ka galaan meelihii laga diray sidaan warka ku hayo Norway bay ahayd run ahaantii ma aha dagaalkaa dheer ee la soo galay ee aan wax ka taabtay yoolkiisa iyo hiigsadkiisii weli maynan gaadhin weli baadidoonkiisii baynu ku jiraa iyo socodkiisii reer Norway jaaliyad isku duuban oo aan kala lahayn xisbiyo meelaha qaarkood runtii hagu daraatay UK xisbiyadu way kala kaxeeyeen laakiin halkan waan dareemayaa idina waa muujiseen inaad mid tihiin oo aad isku duuban tihiin waxa idin midaynayaana waa waajibka iyo mas-uuliyadda ciddii garata ayaa idin midaynaysa oo ah qarannimada Somaliland ilaalinteeda ama soo dhaweyn madaxa u noqoto ama raadinteeda iyo baadigoobkeeda ictiraafka ha noqoto ama waxtarka iyo dib u dhiska dalka ha noqoto waxa aad ka midaysan tihiin
waa qarannimada waa ummadnimada waa waxa guud ee aynu wada leena ee aan ina kala soocayn waayo gudaha markaynu joogno xisbiyaa la kala yahay xisbigu kursiga iyo hogaaminta dalkunbuu ku kala duwan yahay oo kala uu kala eryanaya oo u tartamaya laakiin danta guud iyo qarannimada meel baynu ka wada taagana oo uga soo wada jeedna waxaan u malaynaa Norwayna tamidaynaysa bulshada reer Norwayna tamidaynaysa ee ay garteen ee inta kale kaga duwan yihiin ee saldhigga u yahay inuu qodobkaaya aad iyo aad baan idinku ammaanayaa aad iyo aad baan ugu mahadsantihiin intaas waa reer Norway waxaan leeyahay weli ma dhowa wax badan ayaa laydinka baahan yahay oo intaa aan sheegay inaad ka kordhisaan oo xodxodashada dalka aad joogtaan waa dalalka dhinaca markay yidhaahaan dadnimada u dhimrada ama u damqada ama dareema qofka xuquuqdiisa ilaasha xuquuqda bini'aadmiga ayuu ka mid yahay marka inagu waxaynu u dagaalamaynaa jiritaankii ummadeed jiritaankii daneed jiritaankii qowmiyadeed baynu ku dagaalamaynaa oo aynu xaq u leenahay oo aan ahayn mid aynu baadil ku doonayno ee midaynu xaqeennii markii horena helay oo gumaysigii ingiriiska ka qaadanay dal baa joogtaan dalkaad joogtaan xodxodashadiisa howlgalkiisa yaanay noqonin mid aad isu dhigataan kaalin weyn baa laydinka baahan yahay waxaan aad iyo aad runtii oo kale idinku bogaadinaya in aad ka qayb gasheen siyaasadda dalka kan taasina ay idin fududaynayso oo Faadumo Cabdikariim Baashe iyo in badan oo kale iyagu aan musharaxiin noqon laakiin linkiskooda iyo xiriirkoodaba leh ay joogaan runtii dhalinyaro badan oo aqoon-yahana oo la dhalay oo dee ubadkeenniyahina ay kaceen oo iyagu kuwii iskuullada maanta ay madaxda ka yihiin dalka ay heli karaan saaxiibadood waxaan leeyahay wax badan baa tari kartaan wax badan baa qaban kartaan wax badan baa qadiyadda ka dhaadhicin kartaan wax badan ayaad samayn kartaan waxaan leeyahay intii waa inaad ka ballaadhisaan intaasi waa fariin iyo dardaaran anigu runtii socodkaygu wuxuu ku saraysan yahay imaanshahayga meelaha ugu horeeya aan qalbiga ku qabtay ee aan imi Norway ayaa kow ah waxa aan idinku doortayna waa isku duubnida dareenkeeda iyo aragtidaba aan ka qaatay waxaanay tusaysa mas-uuliyadda laga magacaabay oo ah la taliyaha madaxweynaha ee arrimaha dibadda waxaan u socdaa imika socodkaygu kuma salaysnayn ama bixitaanka aan dalka ka soo baxay inaan xog doono fasax buu ahaa markii hore laakiin fasaxaygii markaan qaatay noqoshadayda aan imika noqonayo waxaan doonay inaan xog badan sii helo oo arrimaha dibadda wixii aan kala talin lahaa siyaasadda si ay u socoto dal walba waan sii maray Scandinavianka Sweden Denmark iyo Norway aan maanta joogo Ingiriiska waxaan doonayaa inaan macluumaad badan ka qaato bulshada dhexdeeda inaan dareenka dadka akhristo inaan warbixin badan kala tago in wixii aan ku talin lahaa iyo aragtidoodu wixii ay dee noqon lahayd aan oo xaqiiqda ku beeskaraysan oo ku salaysan inaan ula tago madaxweynaha oo aan u sheego socodka aan idinku imo maanta idinkana ee safarkaygu salka ku hayaa waa kaa xog urursiga ah ee aan xogta ku doonayo ilaa maanta in badan baan helay amaan xildhibaanada safiirka odayaasha guurtida garabka habluhun baanan isarag
laakiin inta kale intooda badan wax badan baanu kala qaadanay wax badan baan ka helay oo faa'iido aad iyo aad noogu mahadsan yihiin intii aan kala sheekaystay intaas waa ta socodkayga anigu dalkii nabad baan kaga imi wuu wanaagsanaa su-aashii xildhibaanadii weydiisay faadumo qaxoontiga may ahayn yes qaxoontiga yaman ayay ahayd siday dowladdu u aragtaa ayaan jeclay su-aashaadu inay ahayd maxay ka qabtaa ama maxay ka qabtaa qaxoontigu sideedaba marka hore inagu ummadda reer somaliland dhaqan bay lahayd qofka colaadu wado iyo qofka abaartu wado haddaad maanta istishaan idinkoo istilaayo haddii abaari kuu keento iyo haddii colaad kale kuu keento midnaba madaxiisa lama cesho waa la dejaa yamanna de innagaaba maanta dalkan aynu joogno qaxoontinimanu kusoo wada gal nabadgelyanu u baahnayn meelaynu ku xasilaabaynu u baahnayn wakhtiyo adag baynu soo galla runtii iyaguna wakhti adag bay maanta ku jiraan naftay la soo cararayaan innagu awood badan dal ahaan ma hayno laakiin dhulkii baynu haynaa ay degi lahaayeen ee nabad ku fadhiyi lahaayeen inta koodii u bogsanayo dhulkay degi lahaayeen baynu haynaa adduunkana waxaanu tusaynaa inaynu dal jireen nahay dad ummadda ka mida nahay soo dhoweyn karo qaabili kara cid taasi waxay muujinaysaa markaynu qaabilno ee dejinno adduunyada kale waxay tusaysaa inaynu dee dal isagiiba qaadi kara ummad oo wax marti gelin kara oo adduunyada ka mida inaynu nahay anigu waxaan u arkaa inay waxtar badan xagga siyaasadda ama united nationska aragti badan ka bedelayso xagga horumarka dalka odayga guurtidii weydiiyey runtii dalka wax badan baa laga qabta anigu waxaan leeyahay wax badan oo qurux badan baa la qabta waxaa ka mid ah dowladnimadu institutionska dowliga wasaaradaheena maanta markaynu qaadno wasaarad qura oo meel aad ugu tagtid wasaaradda arrimaha dabadda iyo wasaaradda dibudejinta meeshaan ugu tegay markaan galay jeelkii laygu xidhay buu ahaa 1982 hargeysa gudaheeda halkiibaa wasaaradda u ahayd xafiis wasaaradda dibudejinta u ahayd isku kaambool baan isku meel bay ku jireen maanta mid waliba waxay leedahay daar 2 dabaq iyo 3 dabaq oo wasaaradood oo muuqaalkeedii iyo aragtideedii leh oo lagu soo hiban karo waayo hugaaguna waa kula barya tagaa marka lagu arko kii shalay kuu yimi berri markuu kugu soo noqdo ee ku arkay inaad sidii ka bedelan tahay dee waxay ku ridaysaa surprise waxay ku ridaysaa inaad dad wax qabsanaysa tahay waxay tusaysaa ciddaad ahayd iyo waxaad ahayd waxaanu nahay dalaan la aqoonsan waxaanu nahay dadaan wax la tarin waxaanu nahay dad aan weli macaawono dhab ah aan helin oo ay dalka ku dhistaan waxaanu nahay dal aan hanti badan lahayna burbur ku soo dhacay waxaanu dal wixii yaraayay lahaayeen iyagu dhexdooda yabyabanaya oo ururinaya oo isu geynaya intaasaynu wax ka samaynaynaa oo wax ku wadwadnaa intaynu wadooyinka ku dhisaynaa waxaanu u bareedhnay waddada cerigaabo kale waxaanu u bareedhnay 100 laami laamiyadu iyagaa isu soo dhaweynaya haddaanu wadooyinba jirin meel loo maraba male anuu runtaan idiin sheegaya markaan boorama la ii bedelay awdal gobolka awdal waddada waxaa dhisnaa waddada
qofkii arkay baa arkay ama garanaya degaan ahaan kala baydh ilaa dila way burbursanay dila ilaa boorama dhinaca dila way ka qaadnayd waxay gaadhsiisnayd tulli may gaadhsiisnayn yacni ilaa 10 kilomitir ayaa ka dhisnaa dhinaca kale garayacawl 4 kilomitir baa ka dhisnaa inta kale rad baa la marayay waxaan ku geli jiray 3 saacadood reality markaan idiin sheego dhammaystirkii la dhameeyey dilaa ilaa boorama waxay sahashay 45 mirir oo burburkaa dila iyo kala bay dhexdooda mooyaane inaan ku tago inta kale wax ka yar dila markaan soo gaadha inaan ku tago wax ka yar 20 mirir waxaana sahashay waddadaa la sameeyey dadku wuxuu islahaa wuxuu ma aha maxaad samaysay fakerka iyo wax la imaanshaha iyo ku dhaca ayaa wax weyna waxba lama qabsan karaa la islahaa waddo lama samayn karaa la islahaa wala yaabaano madaxweynihii hore daahir riyaara kaahin markuu yidhi waddada aan samayno fakerka iyaga iska lahaa reer booraba iyagu ka yimi aan waddadan samaysano wuxuu waddooyinka waxaa sameeya dowladaha waaweyn baa samayn kara inaguma samayn karno laakiin markii dowladdan kala timi way ku dhiiratay markay arkeen dadku inuu qabsanayo ku dhaqaaqay ayay iyaduna tiri gacanta ku qabo waxay taasi keentay in dowgii caddaa la dhis in ballagubad la dhis in la dhisay salaxle in ood weyne ilaa burco ilaa ood weyne anaaba joogay burco iyo ood weyne taas in badan baaban dee dhex joogay in ceerigaabo loo badheer oo aad garanaysaan 300 oo kilomitir inay tahay wuxuu maaha qabashaduun waa la imaanshaha rabitaanka ummaddu inay rabto inay dowladdu la timaado qorshaheeda runtii anigoo aan waddooyinku tilmaamayn dadku waxay yidhaahaan shaqa abuur warda togba taagtii buu rogmadaa dowladdu shaqa abuurka way samaysaa markaan contract siiyo iminka dowladahana aynu joognaa shaqa abuurka maxay ku sameeyaan shirkadaha mashaariic baa la abuuraa shirkadaha shaqaalaha qorta intaas oo company baa dhisa oo la siiyaa contracts te dhagaxa ku wareejisaa dowladda oo dhan shaqaala u shaqaynaya wastaadkii baa ka shaqaynaya kuuligii baa ka shaqaynaya nijaarkii baa ka shaqaynaya kii dhagaxa intaasna dukaamada waa laga soo galaya daartan la dhisaayo ee la binaynaya bilaashu binaysma mayso shaqaalay u baahan tahay shaqaalaha haddaan daartaasi jirin dee shaqa abuur ma yimaadeen shaqa abuurku dee tugba taagtiis buu rogmanayaa intii la samaynayo wixii la qabanayaba waddooyinkan la samaynayo ma aha dadku inay bilaashu shaqaynayaan qof kastoo wax qabanaya wuxuunbuu qaadanaya qof kastoo wax qabanaya wuxuunbuu qaadanaya itaar kasta ha noqoto dhaqaaluhu ha iska yaraado laakiin waxa weeyaan way jiraan waayo maalintii xukuumaddani la wareegtay shaqaaluhu wuxuu ahaa wax kooban oo ilaa anigu qiyaastii exactly duldhiga maayo laakiin 4,000 to 5,000 buu ahaa 4 ilaa 5 kun maanta ilaa 20 kun ayuu gelaya shaqaalaha rasmiga inuu wax badan horumarka dalka ka qabtay gobol kasta hadday tahay waxaan tirin karaa anigu ka markhaati kacayaa 2 gobol baan barasaab ka noqdo 2 gobol say ahaayeen way fadhiyaan asxaab badan oo reer boorame way fadhiyaan halkan way iga markhaati kacayaan maalintan tegay boorama inta street ee qura ay ku yaalay way ka markhaati kacayaan maanta inta street ee ay leedahay boorama dhexdeeda magaalada gudaheedu
waxa weeyaan every koonahaad ka soo wareegtidba laami baa ka baxaya. Hargeysaa la mida, Burcaa la mida, berberaadan meel camuuda ku arkayn maanta markaad realitiga doontaan berberaa isku wada xidhantay square haddaad dhex martaan de horumarkay ka mid taha xaqiiqa markaad doonaysaan. berberaa anugu markaan tegey waxay ahayd bishii January February baan tegey runtii bishii February dhammaadkeedii ashqaraar bay igu rudi waayo meel aan laami laga dhiginba ma arag weliba laami maaha kuwii xumaaya dhagax la saaraya maaha awal maynan haysan mashiinadan isku khaldaa chayga iyo daamburka iyo amuud waxay isku mix karaya plantska mayna haysan laakiin iminka tartan bay gasho waa lala wadayeen waa la wada haystaa kaa madaarka Hargeysa lagu dhisay ayaa berbera ilaa Hargeysa lagu jeexo lagu dhisay marka berbera ilaa sheekhna sidaas leeg baa wadada lagu ribeeriya lagu dhisiya kala bayd ilaa dilana waa lagu dhisiya sanadka imika haddana deyntan ka imi la bilaabin kulley TV-gan ka arki lahaa lama bilaabin laakiin way ku jirtaa in la bilaabo. waxaa jira sanduuq la yidhaaho waxbarasho tahay iyo hadday ciidamo tahay darajada waa wax badan iyo hadday tahay lacag yowgii gimbaarka ahayd ee dalka Ceerigaabo Togdheer awal wuu kala xidhnaa wax lama kala qaadan jirin dalka oo dhan waxa ku kala socday lacag yow kala jaada laakiin maanta talaan doon baa socota wixii soo raaca waa dollarka yar qurba joog jeebka ku siteenta kala tago ayuu soo raaca marka ilaahay ma hadii baynu joognaa dardaarankayga koobaad waxa weeyaan jaaliyad wanaagsan baa tihiin dad isku xidhan baa tihiin qorshaha quri aad ku dadaashaan xildhibaanada idinku jira golaha deegaanka dibna isu sharaxi doona ee halkan ka hadlay Soomaalida codkeeda way hakrataa u soo baxa oo siiya wax badan bay idin qabanayaan runtii wax badan bay qaban doonaan wax badan bay tariyaan waxay yeelanayaan xiriir badan kaas waa kaynu doonayno ana ka seexanina ee sameeya dalkii aad ugu tumaadeen la idinku yimi waa la idinkaga tiro badanaya laakiin yaa la idinkaga tayo badan. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. runtii sharaf bay tahay qaybtan gabagabada inaan idinkala qayb qaato xafladda runtii si fiican u dhacday. waxaan jecelahay runtii inaan si gaar ah ugu mahadnaqo xisbiga kulmiye dalka Norway oo runtii qayb lixaad ka qaatay xafladan. waxaan ka codsanayaa cali sugaal isniin xagan ahle cali maxamed neen halkan yimaado gudoomiyaha jaaliyada inuu halkan isniin soo taago. waxaan ka codsan lahaa Cabdo Aayir isaguna inuu yimaado waayo waxa weeyeen waa martidii oo dadka martida sharafta oo dhan baan jecelnahay inay halkan yimaadaan way ka laga wada muuqdo intii soo qalan qaabisay way hadii jeer soo dhaqankeena waxaynu ilawnaa dadka wax qabta in loo mahadnaqo surub adigana runtii waa lagu baahan yahay oo waxaad noqonaysaa adna iyo dee labada odaynada way ku jiraan oo khasab bay ku jiraan odayga gudoomiyaha golaha guurtiga cid kastoo title waa loo baahan yahay wayna inay soo taagaan runtii iyo Cabdullaahi Salaam Biduuda isaguna cid walba ka wakiila runtii haddii aan waxoogaa haddaan qiimeyn ku sameeyey runtii waxay ahayd xaflad aad iyo aad u qiimo leh oo u wanaagsan oo si sharaf leh u dhacday soo dhaweyn ahayd lagu soo dhaweeyna Cabdo Axmed Aayir marka runtii jaaliyada iyo xisbigu si fiican bay isu kaashadeen marka anigu qiimeynteeda aan saan u arkay waxay wax aad iyo aad wanaagsan si gaar ah nagu mahadnaqnaa telefishinka qaranka iyo Maxamed Jamadif oo isna runtii qayb ka qaatay waxsan sheeg oo isaguna runtii sawiro fiican qaaday isagoo waxaan ku yiri waxsan sheeg magaca bedelo cirsanka yar u bixi baan dhigay si bahalka loo akhristo waxsanka lagu soo degdegay fanaaniinta Cabdirashiid Cali Xamre aad iyo aad mahadsantiin marka runtii waxaan jeclaan lahaa inaan Cabdo Aayir kelmad siiyo wixii dardaaran iyo talo ah ay nagaga tagayo kadibna markaan dhinaca gabagabada u gudubno. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين.
horta runtii aad iyo aad baan bulshada reer Norway reer Somaliland ee ku dhaqan dalka Norway waxaan jeclahay gobollo badan bay isaga yimaadeen laakiin magaalo madaxdun baa saldhigga u ah aad iyo aad baa u mahadsantihiin soo dhaweynta aad ii samayseen qaaliga ee qiimaha ku fadhida ee quruxda badnayd aad baan runtii idinkaga mahadcelinayaa waxaan isleeyahay dardaaran waa kii hore reer Norway bulsho isku duuban baa tihiin way idinka muuqataa horena waa laydinku ogaa ilaa iyo halgankii ilaa iyo maanta dad aqoon laga dugsanayo oo badan baad leedihiin waxaan idinkula dardaarmi lahaa oo odhan lahaa Norway waxay ka tirsan tahay dalalka koobaad ee barwaaqo sooranka maaha kuwa Ingiriiska laakiin barwaaqo sooran marka la adduunka oo dhan baan ka hadlayaa ama ta koobaad bay noqotaa ama ta labaad bay noqotaa marka beer capital la xisaabinayo marka waa dal dimuqraadiya waa dal wax badan ina tari kara waa dal aad imika xildhibaana ku yeelateen waa dal caruurtii aqoon badan ay ka faa'iideen oo ay leeyihiin maanta waa dal aad ka baadi dooni kartaan dhexdiisa qadiyadda Somaliland iyo Somaliland waxay tahay aad ka dhaadhicin kartaan waxaan leeyahay wixii hore ka soo baxday damaanta leedika sugiyaa waa taas aan idinkula dardaarmayaa idinkaan xusbi u eegin idinkaan koox u eegin idinkoo isku duuban idinkoo mid ah sidaa idinka muuqata ku baadi doona waxaan rajaynayaa inay madhadhow wanaagsan yeelan doonto oo aad ka madhandhalin doontaan wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aad iyo aad buu mahadsan yahay runtii cabdilaahi salaam bidawe naga maqnaa waxaana dhaqan ahayd marka la maqan yahay dalkii la tago in la isu warramo ma jecli inaan nagu sii dhaaran laakiin waxaan jeclaa inaad kelmad adiguna kolley wixii aad dalkii ku aragtay aad nagu inaad dee noo yara warrantaan jeclay dalkii de horta warkiisa waa la dhameeyey oo hore waa looga hadlay dalka marka runta laga hadlo horumar wanaagsan baa ka dhacay horumar wanaagsan baanu sameeyey meel wanaagsanna waynu maraynaa waxaan loo baahan yahay in halkaa laga sii qaado runtiina madaxda iyo minjaha reer Norway aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa abaabulkan iyo wanaaggan horena way u lahaayeen ilaa jabhadii lankana way leeyihiin wadad mid ah marxalado badan oo ina soo maray ayaa jira oo laga soo gudbay iminkana tikaleeda dardaarna waxa weeyaan inaynu mid noqono oo jaaliyada gacan la siiyo waliba inanka ah gudoomiyaha intaynu member siin kara aynu siino inta ugu badan aynu siino waa intaynu siino baa wax lagu qabanaya inta uu yidhi la taliyuhu Cabdoona de dardaaran ka weyn ma jiro ciidana uma maqna ceelo uma qodna maanta inaga la inooga fadhiya inaynu ixtiraaf raadino iyo inaynu dhex gallo waliba waxa gaar ah oo tan ay sii dheer tahay isku wadaynu maray waxaynu Norwegiga waraagnaa 17 May bay leeyihiin inana 18 May baynu leenahay national daga waxay tageen Eidsvoll oo ku shireen sideenoo kale oo ka goosteen Dharmaark iyo Suudaan inana burcaynu ku shiro aynu ku goosanay meelo badan baynu waxay ahaayeen marka niman sideeno kale taariikhdeeno kale soo maray ayaynu naho wax badan oo noogu beer lahayn soo kale jirtaa laakiin si waxa leeyahay baahan inuu dagaalada qaadano waana ka yeelina Cabdo fikradda waanu qaadanaynaa maanta alxamdulillah rabbil caalamiin waxaynu haysanaa aqoon-yahano dhalinteena oo kacday waxaynu haysanaa xildhibaano ilaa baarlamaanka weyn inuu galano oo tijaabinayna hadii alla yiraahdo markaas dalkeena baasho aad buu wanaagsanaa uu inta telefishinka qaranka nimankii xiriiriyaasha ahaa gudoomiyaha jaaliyada safiirkeena qiimaha badan qaaliga ah sulub اللهم صل على قدوميها قورتدا iyo dhamaan cid ka qayb qaatayba madaxda xusbiyada gaar ahaan xusbiga kulmiye oo ah xusbiga soo abaabulay xafladan intaba si odaytinimo lagu mahadnaqaya Cabdoon waxaan leenahay kulay soo dhaweynteena naga waxmaan saagood sugan naga waxmaan maayo insha Allah taala dadaali wada jirban isku ognahay aad iyo aad baad mahadsantahay runtii waxaan jeclahay maxamed axmed nuur
tahar runtiisna oday waxay golaha guurtiga ee reer Somaliland runtii waxaynu helnay jaaliyad baynu lahayn jaaliyadna meel bay heshay meeshana runtii kharash badan baa ka dhinaa odayaasha jaaliyadu si fiican bay u socotaa runtii oo qurux badan dadku way u hagar baxeen dhaqaalihii way bixiyeen xoogay baa aan badnayn ayaa oo tafatirmi doonta labada wiiga soo socda insha allah bidnillahi alkariim wax naga xumi ma jiraan waxaynu diyaar garoobaynaa 18 meeyo ay guddidu diyaar garaysay qorshaheeda safiirku uu hogaaminayo safiir sul warsame aynu ka howlgeli doono dumar iyo labada garabba insha allah aynu xaflad wanaagsan oo 18 May aynu si wanaagsan aynu ugu dabaaldegno si wanaagsan ugu qasoobi doonta guddida jaaliyaduna ay diyaar garaysay hawsheedii oo dhan qarashkeedii wax walba ay diyaar garaysay oo aan maanta ay tahay maanta maalin aynaan waxba u baahnayn oo tii hore ay ogeydeen halkaanu Soomaaliya waxaa loo baahan yahay oo sida dardaaranku Cabdooyin iga tagay oo dardaaran wanaagsan oo dhaxalgal ah ama inaad ila dardaarmo ah ilaa nafmeed ma jirtay caawba naftu uga bixi kartaa aan ila dardaarmaane reer Norway waxaynu wax noqon karaa oo aynu Soomaaliland wax u qaban karaa oo itiraaf raadin karaa oo aynu dadkeeni gudaha ku nool wax u qaban karaa markaynu inagu horta wax qabsano halkan كريم تانو ديار قرون إن شاء الله آدي آد باي لكن ما حسنتين إن عبدونا وحولنا عبدو آد بعضو ما حسنت هاي وربحين تنسيسي دردارن كاد نقاط تكتينا والكوه وقلنا وانا نقاضناي خورنا هاوش والوجود شرنايو حل بعضنا ده يقولوا ويد دالان أنا أقول وانو سفير كي يقولوا ويد دالا أنا أقول وانو لد دال دونا إن شاء الله إن هو بدلوا سفير قبطي أو حل بعضنا قبطين أو إن تويدة أرنت على قاضناي أنا أقول وانو قريب قل دونا تقالنا وانو قل دونا إن شاء الله هاوشنا ونسيكور دونا إن شاء الله ونقوه قابين السفير سول بورسمة والله بدون هوش إن شاء الله بإذن الله الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في تصوير كيسو محمد عبدي وحسين سوق بقولين دونا ما وحوا عن إن وحن نقولنا إن سفارة دي أيمان تحفيز هالشيء أيامها وحلا جوزي دلدلة ميساسية كراس إن جوب تشاليدة إن مركرنتي تدوينها عادات سيرفيس السماين سيادي كلا سلو حول بدن بدغوانا سوانا تشيكتو السلام عليكم dardarankii qaadanay cabdo maxamed tahar iyo cabdilaahi salaamaanba waad ku mahadsantihiin sida uu sheegay baashe de xafiis markii hore waan lahaa runtii laakiin waan ka guuray goobtii hore waxaan u guuray jaaliyadda jaaliyadda waxaan ugu guuray inaan iswehelshano jaaliyadda oo kala maarmi mayno runtii oo isku shaqun baanu nahay si aan wadankii aanu wax ugu qabanno waxaan isnidhi bal meel iskugu keena xooga sidaana waa inaad la socotaan oo wixii adeega ee looga baahdo dee diyaar baan u ahay taasi waa taa arrinta xubninimada jaaliyaddana maalinta 18 May albaabkan dadka u joogsanaynaa runtii miisna waanu dhiganaynaa foomamka iyaguna halkaasuu oolayaa si qof kasta isu diiwaangeliyo taa waanu ka howlgalaynaa insha allah taasi waa taa waxaa intaa ii dheer kolleyba dee wanigii hore uu yidhi wufuud bay nagu soo foodle muddo gaaban taana aanu isu diyaarin ugu dheedaa laakiin warkaa dee kolleyba waad heli doontaan cabdow soo dhawo baanu leenahay for the second time aadna waad u mahadsan tahay habeen wanaagsan waxaan jeclahay ugu dambeyntii inaan u mahadnaqo khadar iyo mustafe iyo dhammaan guddiga jaaliyadda waxaa leeyahay guddiga xisbiga kulmiye iyo Maryam iyo Ibrahim dhammaantiinba aad iyo aad baan masiya maxamed cabdigucuse markaa kelmadda ugu dambeysa waxaan siinayaa maxamed oo runtii inoo ahaa qabanqaabadii xafladan inoo soo qabanqaabiyey ahna guddoomiyaha xisbiga kulmiye dalka Norway waxaan u wareejinaya maxamed cabdigucuse kelmadda ugu dambeysa
بسم الله الرحمن الرحيم hadalkii wuu inoo soo dhammaaday waxa inoo hadhow waa gebagabadii waxaan markii ugu horreysa u mahadnaqanaa martidii sharafta lahayd ee kasoo qayb gashay inay soo ajiibtay ayaan aad iyo aad idinku mahadnaqanaa waxaan kaloo mahadnaqayaa in alaaliinteedii wada shaqaynaysay ka wada shaqaynaysay abaabulka iyo inuu qarsoomo shirkani waxaan kaloo mahadnaqayaa gudoomiyaha jaaliyadda cali maxamed oo ahaa isna lafdhabarka hawshan iyo shirkan iyo qabanqaabadiisa waxaan u mahadnaqanaa odayada oo hogaaminaya maxamed nuur tahar waxaan u mahadnaqanaa sulub wakiilka waxaan u mahadnaqayaa oo had iyo goor isagaan mahadnaqiisa lasoo koobi karin hawsha inta badan la-aanteeda aanay wax badan inoo suuroobeen tv-ga qaranka uu hogaamiye maxamed jaamac dhiif dhammaantiin waxaan idin leeyahay caways wanaagsan iyo nabadgelyo iyo cabdooy aan sii sabootino inagoo wada joogna iyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu markaan doorashada arkay